Thank you, Said. Kusoo dhawow Dhab TV in badan baan Kartila TV ka daawanay oo aad shaqooyin badan u qabatay dadka Soomaalida meel walba ay joogaan khaasatan walaalaheenna Djibouti. Nin waxaa tahay ka warhaya siyaasadda Geeska Afrika si fiican. Maanta horta aad baan u faraxsanahay in aad kusoo dhawaatid Dhab TV. Kusoo dhawow walaalkiis. waan dhawahay walaal horta assalaamu calaykum waraxmatullah salaamta kaa qaadaya ka bacdi axmed yaasiin dhab ahaantii waxaa tahay nin soomaalinimadu ay ku dheer tahay nin activistia oo dhab ahaantii aniga aad ii cajibiyey oon aad loo dhacay maaragtay storygaaga iyo waxqabadkaaga anoo og imika oo tawaado ila jooga haddana aan kolkaan dib aan u maqlay storygaaga waxyaalahaad qabatay successkaaga aad ka samaysay Edmonton waan fajacay inaad nin aad iyo aad dadaal badan oo xagga communityga Soomaalida aad ay Soomaalinimadu ugu weyn tahay oo naftiisii waqti badan u huray horta inaad tahay waan soo ogaaday intaan garanayn baan ku jiray laakiin imika aad baan culays inaad nin aad culus tahay aan xaqiiqsanahay sida laajdigeed waxaa tahay dadka farakuturiska ee Soomaalinimada aan Maxamedow Axmed Yaasiin anoo run sheegay inaad igu jirtid dadka baashka daadka ku jira yaad ka mid tahay taasi waa Axmed Yaasiin sharafta iyo maamuuska aan u qahiyo kow waxaan kale Axmed aan ogahay imika on TV-ga Dhab TV aad maanta aad iyo aad oo TV cusub aad waxaysay aanana aaminsanahay in aad sidaa u abuurin baahi jirtay inaad uga jawaabto aad ugu abuurtay aad fikraddaana u curisay waana kugu maaragtay hambalyanaya horta Dhab TV waana garan doonaa inaad meel dheer gaarsiin doonto Axmedow anigana maanta inaad Dhab TV igu soo casuunto aad iyo aad baan kugu faraxsanahay waana TV-gayga labaad Kartila TV igu xiga aan jecelahay inaan gacan saar oo ka faa'iideysanay khibraddaada iyo aqoontaada iyo galaangalkaaga aad maaragtay ilaa dhowr iyo 30 sano wax ka badan ku soo jirtay yaan jecelahay inaan aad isku garab taago Dhab TV waana qayb iga mid ah Dhab TV Axmed waana kugu soo ceshay mar kale aad baa u mahadsantahay Saciid waxa weeye hadallo dhiirigelin ah oo aad u badan baad tiraahday nin walaalkayo aad u dadaal badan baad tahay intaan ku bartayna aad baan u farxay Dhab TV-na dee adiga iyo mataqaanaa doctorka la'aantiina suurtagal ma noqoteenba soo aad baan ku mahadcelinayaa wax walba iyo aad ila samayseen adigana dadaalkaad wadid adigiyo bahada Kartila TV waxa weeye wax muhiima marka waxa kaliya naga maqan waxay ahayd inaan annakii isku xiranno oo siyaasaddeena Soomaalinimo ay midowdo oo aynan waxa Djibouti ka dhacaya aynan wax mataqaanaa hal 4-5 qof oo gaar ah dhibkaas unan ahaanin waxa ka dhacaya deegaanka Soomaalida ama Soomaaliyana unan dad kale oo gooni ah aanan u ahaanin waxaan TV-yadan iyo codkeena aan rabnaa inaan u mideyno waxa weeye wax la xisaabtama dadka xukunka haya oo jira ma jiraan dadkii waxay noqdeen wada nacamlayaal ama dad raba inay nacamlayaasha usii nacamlayaan marka codkii shacabka ayaa meesha ka maqan dhagihii shacabka ayaa meesha ka maqan dareenkii shacabka ayaa meesha ka maqan so inteena badan waan dadaalaynay laakiin hadda waxaan rabnaa inaan codkii noqono so marka aad baan ugu faraxsanahay dadaalkaa waday in muddo ah haddana aan gacmaha isqabsan doono marka aan kugu soo celiyo kusoo dhawow mar kale daawadayaashii cid walba oo rabta inay comment bixiso way bixin kartaa aad mar walba waxaad uga hadlaysay Djibouti waxa ka socda bal horta xaaladda Geeska Afrika wax yar fikirkaaga bal noo sheeg iyo waxyaabaha adiga khaasatan kurbada kugu haya ama dhibka kugu haya waayahay
horta aad baan kaa magacelinaya axmed mar labaad niyo su-aasha aad weydiiso waa su-aal aad u culus waan kuu kala qaadqaadi geeska africa sidii hore maaha waxay ku soo beertay meelaha adduunka laga daneeyo awal lagama daneyn jirin dhulka saasidii dhulka ay maarata ay khayraad ku jiraan baa la daneyn jiray laakiin imika waa la daneeyey oo adduunka raggii adduunka ku tartami jiray yaa horta taarget ka dhigtay horta geeska africa marka inuu wax walba ay sidii hore ahayn oo annaka wax haddaan geeska africa ummadda deganaad nahay inay wax cusub haddeetul ayna soo galeen oo dib dambe maaragtay ay hawluhu sidii hore ay iska bedelayaan oo dad kale ay yimaadeen awoodo kale horta meesha ku xafiltamaya horta waa kow taay waa laga dhareysan yahay qof kastoo arkaya waa shiinaha iyo maraykanka iyo turkiga iyo waxa geeska africa way daneeyaan way taa way muuqataa taay waxa ay noqonayaku waxaan aaminsanahay kuwaasi maraykanka iyo shiinaha haddana hays eryadaani iyakuniyo waa dad isfahmi karaa akhirtaankii say u socoto waa la isfahmaa oo suuriya dhulkii waxa dhulkaa oo dhan iyaku ma dhintaane dadka dhulkaa ma dhintay iyaku way isfahmaan simba caqile meel bay iskugu yimaadaan halkan buu qabsan uu sii deyno adna halkan baa qabsan iyaku xal bay iskugu yimaadaan iyaku sax laakiin waxaan xal iskugu yimanin sida loo kala ronadaan garanayn waa annaka iyo afrikaanka haddaan nahay annaku haddaan nahay waa etoobiya jabuuti iyo eritrea ma naqaano haddaan qoymid nahay sida loo kala itaa ronaado war halkan adna qaado halkanna u daa ma naqaana taa annaku waan isku dhammaanaa sax taa waxa soo raaca haadadanna imika waxa cabsida kuugu dheer baa iga tiri nacma adigaad ka fikirto waxaan ka fikiraa dhaqdhaqaaqan etoobiya ka socda waan arkaa waa etoobiya waa 100 milyan iyo wax ka badan culays bay ku leedahay geeska africa haddii ay sida u kala qaraxdo kulli waxbay keeni doontaa dhibaatooyin bay yay keeni doontaa waxa ugu daran ee ugu horeeya ee maanta ugu dhul ballaaran annagu iyaan ku jirra haddaan soomaalinahay dadka ay hadday kala caymadaan dhulka ay ku soo kala qaxayaan ay qabsan doonaan waa dhulkeena bal halkaasaa maraysid aan kugu yajoojiye bal aan dhegaysanno madaxweyne mustafa maanta wuxuu yidhi wax yar kadibna sidee noo soomaali ahaan ay noo effecti garayn doontaa aadna dhinacaaga iyo fikirkiisa ku darsatid Ethiopia maadaama markii hore aan sharxin turbulence u badan halka uu ka jiro fursad yar baan u qaadanayaa inaan waxa la isku haysto state formation guud baan ka hadalno geeska ta Ethiopia waa very critical Horn of Africa oo markii hore aan nidhi uu ka duwanaa state formation kiisu Afrikada kale ayay Ethiopia ka sii duwanta because elementigan cadaanku wadanka ay iyagu hayeen gacanta ku hayeen kama dhicin wax internal colonization uga ka dhacay qowmiyadaas qabsaday bay noqdeen marka dynamicsiga Ethiopia oo ka duwan Horn of Africa iyo population oo ka badan iyo foreign interference-ga aan ka hadalay mar walba jiray laakiin dalka ugu ballaaran Ethiopia anchor state in laga dhigto la doonayay wuxuu keenay turbulence badan inuu ka dhaco dalka hadda ka socda qayb weyn waxa ka geopolitics baa qayb weyn ka kooxda TPLF waxaan aaminsanahay mar hore in laga farxashay 3 sano ka hor xoogan hadda ay ku dagaalamayaan iyo turbulence soo noqday iyo xaaladda jirta anybody can guess halka ka timid marka waxaan isleeyahay Ethiopia xaaladdeedu su'aal dadka Soomaaliyeed siyaalo badan u dhigaan federalism baa la isku haystaa qowmiyada is haystaa waa qayb ka mid ah laakiin purely ethnic line ma oromadu fikirka federalismka waa ku qaybsan tahay isku haystaan siyaasiyiintooda iyagoo ka eegaya from power angle iyo qaabka loo fuliyo dad baa qaar oromaha BB sameeyay qaar oromaha diiday for example oo design ka loo sameeyay diidan baa laga fikirka inay diidanay ahmaaradu way qaybsan it's not true ahmaaradu oo dhan federalism ma rabaan ahmaaro fara badan oo fikirka federalismka aaminsan oo gobolkooda gaar ah u haystaan
gobollo kale wax ku helaan group raad ka haysta ee jira iyada dhexdoodana waa tension maalin walba qofka xabashka yaqaan uu arki karo uu ka dhageysanayo weeyaan Tigreegu definitely iyagu waxay u socdaan wuxuu ahaa in ay maamulkii gacanta ku hayeen disproportionate political and economic power ay ku yeesheen state-ka inay yeeshaan oo una demography-goodu siinaynin why because militarist way xoog baana siinaya so madaxweynaha Ethiopia sidaa isku haysato fikirkiisa uu ka yar waa fikir ka doon wuxuu ku doodayaa internal colonization baa jiray maxay kula tahay hadda dooda madaxweynaha intaad hadda maqasho war horta ninkani anigu siyaasi xag jira oo antrovisy oo isku maqan baan u arkaa ninkan markii la doortay horta wallaahi waan ku farxo nin dhalinyara oo enjoy oo waxaan lahaa dee fikrad oo madax bannaan oo Soomaaliya yaad heshay weliba kolkaa dhul Soomaaliyeed taaka lama gali karo hadalkaaba u qaatay bogta kolkaa ninkii anoo sidaa ugu hanweyn waxa sidii uu la dhaqmay raggii ONLF ee dadaalkan lahaa ee soo galay yaa waa sidee ninkani waayahay ninkan waa sidee oo si aan qurux badnayn oo inuu isagu iska hoosisiyo ONLF uu rabay uu isagu uu federaalka iyo ONLF u dhaxeeyo oo ninkan waa sidee quursiga waa maxaqligiisa bal waayahay haddana ONLF oo masarkii Soomaalida u baxdo inta ay u direys iyadoo aan ay saastaan mid sayatay laakiin ba haddana hawshii ay qabanayeen Soomaalinimo uun ninka difaaco ninkii haddana Soomaalinimo halkaas ka dhigay yaa arkay oo isagu karigii caymaday oo wax u doonay hadalkan uu leeyahay ninkani masayr Soomaaliyeed iyo qadiyad Soomaaliyeed cidba kala ma tashado ninkan wuxuu aaminsan yahay Soomaali magaceega dusha ku qaado xamashi iyo wixii kale ee Soomaaliya ama aan Soomaali ahayn magacaaga magac Soomaali adoo sita kula soco waxay ku diraan magac Soomaali adoo haysta ku isticmaal oo magac Soomaali ku shaqeyso waxa aniga ka dhaxarka ninkan inuu leeyahay wax Soomaalinimo dhahdo oo qad masayr Soomaalinimo oo lagu meel mari karo oo maanta loo malayn karo inuu aaminsanimo Soomaalinimo ma jirto ninkan aaminsan yahay xaqay ninka Soomaalinimo waxa dhahdo maanta Ethiopia waa taa kala socota nimba dhankiisu ka tashada uu ismaqlaa way mucaarad maxaafid buu Soomaalinimo iyo qolo kaste maanta Oromo xitaa ka socota xuduud Oromo ka joogta way adanaha Oromo way isku joogsadaan laakiin ninkan waa keligii buu ordaya wuxuu aaminsan yahay isaga rag kalaba tiimkiisaba waxay aaminsan yihiin war wax Soomaalinimo leedahay maanta oo loo joogsan karayo oo la isku taagi karayo masayr Soomaaliyeed ma jirto taabaana ugu wacan inuu ninkani iska hadlo wuxuu ku hadleena ay wax lagu ku jooga ahayn kolka waa nin isagu is aaminsanayn baa ummad inuu hor jooga doonaya kolka dhibaateeda leedahay waxa hadalada aan meelba aan ku tiirin karayn anoo siyaasi ahayn baa ku sheegay kule dadka ay hadday cawaaqibkan ugu soo dhaxay annakii dhul naga qaadeen isagu waxa uu ka arkay wax mid kalena aan fiirno qodob kalena aan fiirno haddana ku soo noqonayna mara qabsanaysaa leeyahay they are confused from my perspective confusion kana waxay ka bixi doonaan markay ku qancaan ay u caddaato politics as they know is no longer going to happen in Ethiopia statiska lagu noqonaya statiska hadda all inclusive discussion hadda la ansixiyay meesha u socda waxa weeye Oromo inay wada hadasho basically habis in laga hadlo soo baxaan it will nullify the TPLF threat very soon because markay taasi dhacdo TPLF aad soo socotaa ma jirayso contestation markaa wuxuu geli doonaa states inay ka wada hadlaan fedka Ethiopia waa waxaynu rabeen u soconayno so any outcome oo ka soo dhacaya dagaalada ka socda Ethiopia Somali region threat kuma including ku anaga naga saaraya meesha including ku anaga naga saaraya as maamulahan threat shacabka Soomaaliya deegaanka kuma aan qabnaano ama federalism hadda jira soconaya ma confederation baa loo gudbaya ama breakups iyo wax kala dhacaya in any case dadkana markaad eegto xansuuqii iyo dhibaatadii iyo burburkii iyo xaqraadii haysatay I think we can very safely say we can talk about that in the past tense
future is very hopeful for our region. Mustafi iyo team la Sacuudiya BB ya siyaasadda ka baxay daadno translate dadkan ay dhibaato ku dhacday markaad eegto dynamics ka soo Ethiopia. We don't see that laftigeeda dhacayso laakiin hadday dhacdo laftigeeda ana waxaan ka wada arrinta Ethiopia iyo Kenya iyo xagaldaacinta Soomaalida waa meelaha aan ilka Soomaalida aan ku dhaliishanahay saddexdii sano iyo barkii u dambeeyay ra'iisul wasaare Abiy go'aanadii uu qaatay siyaasadeed cid badan wax ka sheeganaysa way jiri kartaa horumar dhexdeeda way ka can kartaa qaabkii loo maamulo transitionka xamaaradu way cabataa Tigreegu dawlad dagaalamaya way haystaan Soomaali ilidku laakiin waxa inta badan ay ku cabanayaan waa kayaab waxaasuu soo wadaa oo badankeedu narratives ama Tigreegu ay sameeyeen ama ragabadu ay bunbuniyeen kayaab centralized baa soo wadaa xamaarada dalka qabsanaysa boqosooyin loo socda is all speculative laakiin saddex sano barkii u dambeysay Soomaaliya inuu go'aansado waxaan la shaqeynayaa dawladda dhexe waa wixii Soomaalidu 30 sano ay codsanaysa faragelinta iyo hubaynta iyo qaxalas ka duwan weeyaan uu ku saxsan yahay ujeedadu kale anaga waxba nagama gelin annagu deegaankana xadkii aan Soomaaliya la lahayn dhibaataan ku ahayn laftiganu dadkaan leeyahay cidii soo gashay halkan ee dagaal isku dhaco iyadoo la isla xansuuqay ma dhacdo Leopolis baa lagu laayaa meelaha xuduudaha hadda qaabkii looga falcelinayay ummadaha meelaha jooga in la xasuuqay la laayaa uma dhacdo hadda waay tala Soomaaliyeed baa deegaanka ka jirta sida daraadeed waxaan aaminsanahay Dr. Abiy positionka uu ka qaatay Soomaaliya inuu ku saxsan yahay anybody oo mucaarada maanta oo farmaajo diidan markuu meesha yimaadana he will demand the same policy from Ethiopia nala shaqo hadalka madaxweynaha uu sii badiyay waxyaabo badan buu ka hadlay but kuwa kale oo iska deenina intaasaan ku deen doonaa daawashadiisa so maxay kula tahay waxaad maqashay kadibna haddaan run ka sheego waxaan maqlayay isaga mid baa ku adag midda ugu xun isaga waxa weeye waa tiimka Mustafa la shaqeeya la bedeli isaga intaa ugu daran bas arrintan uu sheegayo geopolitics kani arrimahan isbedelay uu leeyahay uu Soomaalnimo uga hadlayo qof aliyo qof uu kala tashaday ma jirto hadduu qof kala tashaday ayuu kala tashaday abina Soomaali ma dhibaatadu halka wax ka joogta Soomaali isaga tiimkiisu way ka caymadaan umana sare joogan Soomaali haddaba waxa su'aashaadii baan doonayaan si wadaya maxaad ka sii ugu daran oo ka baqdaba ayay halka baan socday Axmed may fasaxaysa ya sax way inta su'aashaas oo ku soo noqon waxa ka sii wada xagaas kowad su'aashaas haddaba ninkan khatarta u leeyahay dadku ma ogo ninkani khatarta u leeyahay ma ogo ninkan 3 sano qof ku yahay ninkan wuxuu yahay waan baranay ninka ragga kolkay dhibaato dhacday baa loo ogaadaa ninkani Soomaalinimo isaga iyo dadka uu la shaqeeyo oo dhanba Soomaalinimo ma aaminsan waxay aaminsan yihiin war Soomaali ma jirto magaca maxaad ku tagtaa waan sheegi doonaa magaca Soomaali dhahdo oo Ethiopia xaquuq ku leh oo wax sheegan karta ma jirto waxay aaminsan yihiin magaca Soomaali uu dulaysan yahay waxaad ka qabsan karaysiin wax ku magaciisa wax ku qabsan Soomaalinimo kaalintii Soomaalinimo laga baahdo buuxiye u tagaan waxaan saa ku leeyahay ya jirta ninka ragga waxa la gartaa markay arrintu xun tahay baa la gartaa walaalkii waxa dhacday dhibaato waa kan qoomiyadu Ethiopia isku xalayaan lacag buu qaaday imsa jeer buu geeyay Xabashi lacag iyo taageero umuji imsa jeer buu ka soo ducaystay xitaa Sheekh Ortodokska Xamashi hadii wax la helo isaga ugu horeeya Soomaaliya shaqadiisa ma aha soo soco anfar wadad muslim haddana uu geeyay oo wuxuu caawiyay abaaraha dhacay lacag buu ku caawiyay waxa dhibaatooyinka Soomaalida ka haysato ee ku dhacdo Matulib iyo meeshas dadka dhibaataysan weli maaragtay sida uu qoomiyada kale ugu caawiyay inuu Soomaali lacag badadkii Soomaalidu ay lahayd sida uu siiyay iyo ka muusiiyay masiin mana aaminsano ilaa hadda maskaxdiisa waxa ku jirta jadwalka xamashadu ay maaragtay amba Abiy ay haystaan inuu isagu kii hirgelinayo xagga Soomaalida ka hirgelinayay isku haystaan ninkan waa qof mashruuc nin leeyahay hirgelinay laakiin maaha mashruuc Soomaali ninkan ma hirgelinayo
tahalka imika socota ninka laftigiisa ee dadku ay weyn weliba reer Djibouti ma sheegaya waxaa jira waniyo geeska waxaan ka boqo geeska tii wanigi soo sheegay wadihii haddaba dadka geeska imika waxa ka jira waxa alliance baa la wixiyay farmaajo iyo SAS iyo Abiy la wixiyay ninkani sida kol hadalkan uu kuleeyahay maarta Abiy Soomaalida uu xaq dooraa oo midnimadeedii waxa uu leeyahay maartay bilaash male ninkani farmaajo aad ugu xidhay farmaajo isna wuxuu ku jiraa iyo Abiy iyo ninkana farqi waxay ku jiraan khaytad bay dhigeen ay uga leeyihiin geeska Afrika arrintan dadku ma fahansano arrintan iminka garbaciise halkan ka socota maaha wax yaroo sokay maaha waa arrin ka socota saddex dowladood dadku ma fahmaan waliba dadka reer Djibouti ama dadka ciisu waxa u haystaan inuu Ismaaciil Cumar Cafar tacaawiyo laakiin arrintu way dhaafsantaas Djibouti iyaa lagu xumeynaya saddexdan wadanna waxa ka dambaysa waa Dubai oo Djibouti inay doonaysa inay jilbaha u joojiso iyaa ka dambaysa ninkani qorshaha uu ku jira Mustafa Cagjar uuna la og yahay uuna la og yahay uuna garanayaa qorshaha meesha jirta Abiy iyo waxa uu isku og yahay dadka runta uma sheegayo isaguna waxa ka dhacsan Ismaaciil Cumar baa sida inay galay wax way ka jiraan hadalka laakiin xaqiiqadu say tahay hadday inay fahmaan inay tahay waxa way waa inay miisaan galayaan war iyaa la rabaa see wax loo rabaa taaba dadkina ka maqan kolka ninkani asalkiisu waxa uu u socdo meel uu Soomaali wax ugu qabto ma jirtay waa aniga kursigoon waxa matal ku siinaya waxa maanta ugu daran isaga waa dadkii u xaq lahaa ee ONLF lahaa amba Soomaali haliye haajiri iyo isaga ugu daran halkiisa waxa ugu daran waa halka isaga halkaas uu heli lahaa siyaasadda raqiis u wadaa inuu isagu isiibiyo wax kasta waxeesu kuwa ku baabiin lahaa Ahmed صح wuxuu markuu hadlayay oo wuxuu ku daray dhowr wax oo si fiican baan ku fahmay wuxuu yiraahday Oromo inay wada hadasho ayaa la rabaa muuna dhin Ethiopia inay wada hadasho ayaa la rabaa hadda waxa la soo saaray dowladda Ethiopia waxay dhahday waxaan sameynaynaa waa in la sameeyo national dialogue oo Ethiopia inay wada hadasho ay dhahayn dowladda federaalka wada hadalkii buu refer gareeyay wuxuu yiraahday inay Oromo wada hadasho ayaa la rabaa oo heshiiso ma Ethiopia inay wada hadasho oo heshiiso anu maana maqaltaas kadibna wuxuu soo daadegtay wuxuu yiraahday dagaalada ka dhacaya Ethiopia anaka wax effect ah oo noo yeelanaysa malaha okay oo wax tareed ah nuguma ah ma hadalkaas ma runba horta marka ugu horeyso soo kan lacagta u baahan lacagtan financial ma soo kan lacagta wada ee geeniya ee cuntadii geeniya ee kuwii dadkii u xaq lahaa ka qadinaya dadkan haddii isku yimaadaan dhulka ugu ballaan waa isaga ma dabqayso isagu inuu soo dhaw doonaya dhulka ay qaataan buu doonaya qaatu doonaya isagu so haddii aan si kale u turjino dagaal kasta oo ka dhacay Ethiopia hadda maciishadii deegaanka inuu kor u wada qaaliyoodo waa la ogyahay because waa dagaaladii hadday noqoto mataqaanaa dadkii shaqadoonka ah ee Ethiopia joogay intooda badan deegaankii Soomaalida wada imaanaya hadday noqoto xasiloonidii siyaasadda deegaankii way isbedeshay wuxuu ku dooday wuxuu yidhi annaka waxaan go'aansanay inaan deegaankeena nabadayno bal deegaanka dagaal ka socda waa maxay waxa way isagu markasta wuxuu ku cishaa meesha quur haatee nabadda waa meesheeda ma garanay meeshan waxa ku taala qaaradda America iyo ku taala Mooysa inay Djibouti iyo ku libaad Mooysa Ethiopia meesha Soomaalidu ay ka go'an tahay oo ray dad baa yaa kasta la dilaa dagaalka dilisan ahayn waa maxay dhimasho dad baa dhinta dagaalka kale oo yaa nabadda keenay on lef baa keentay misaga keenay haddii on lef Ethiopia heshiinin dagaal deegaanka miyuu ka joogsan lahaa ONLF waaba halka isaga uu ka baqtiyayo ugu daran
ما أحمدو نكن واحد ساوله هي وقتنا يرينا همودنا وإن حقيقة فهمها في عن وإثيوبيا قعمك راسو قري صدا ودنا ذاك أفريقيا كبا تيجراجن رقبة ريدي كوي ريدي أرتا تيجراجن رقبة كوسية هذانا يكون باردي هذانا إنك يكون بدو كسريحية هذا محي ما واحد كلاتها هي تيجرا أبي ودي إكروي مايا أبي مدي إكرويني ماشان ريل بوليتيك بجرا ريل بوليتيك بجرا ريل بوليتيك سيدي wax u doonayaan inay wax u dhacaan baa la rabaa ragaas waayo sidii markii hore arintu way ka wajigu way ka badleento meeshii waxay midisaas saas dhukuna imika hankan imika diyaar dhukan Soomaalidu ayuu ka soo baxaa weli hada qasab bay ku tahay waxaan sheegaysay in siday wax u rabaan u dhacdo in wada hadal national consensus la isku yimaado oo la wada heshiiyo halka markay joogto isagu inuu sida wax u miisaamo u dhaao Soomaali ragii maartay miiska soo fadhiisan lahaa ee Soomaaliya matali lahaa xag uu ka ururin lahaa ninkan isaga bas urunaya oo Soomaali calanka Soomaaliya magaciisa Soomaaliya la ciimadaya وأد وحنقول رأسنا إنه ربو صومالي إسا قفان هين إيو إسا قدد مودانين إنه مثلو واسيدا خلط كو أبي وسمينا يو وإيتوبيا حد ولا حضرات دعية يشيس كدعية إيتوبيا كدعية والدولة فدرال كأياه هجامين تاسنا وحصو عنكرة أو صعاني أنا معه وتاس لكن ماشي عن ربو إن عن حمر تابتو إن أو عن هذانا عن كيا دولة إيتوبيا dhaqaalaheeda oo dhan wax inta 80% waxay ka heshaa west dawladaha galbeedka waxaadna u jeedaa ama Mustafa ha noqdo ama Abiy ha noqdo iyagoo intaas dawladii reer galbeedka ahaa gacanta ku dhufanaya ama dhaxaya mataqaanaa faragelin bay nagu sameynayaan ama dhaxaya mataqaanaa waxba so oo u dhaqaaqaya dhinacii eastiga iyo turkiga iyo wixii maadaama Ethiopia 100 milyan ka badan ay jirto threat-ka soo socdana uu noqon karo haddii ay collapse ku dhaco Ethiopia inay isku dhex yaacdo Soomaalina ay noqonayso dadka ugu badan ee effect-ga ku yeelanayso deegaanka Soomaalida madaxweynihiina uu leeyahay annagu wax kastoo Ethiopia ku dhaca ama haday kala tagto ama haday isku joogto ama haday waxba anaga effect nooguma yeelanayso budgetka taxiga dawladdu deegaanka ay qaadana وبقولكيبا طبعاً وكيري هاي أنت أي income كا أي سكنتو أو لعقت أنت وجوبا أي نوعات ما إثيوبيا ذا كاريتا إن صوماليا وأن دول كتيرنا معها أنا صومالي دول إن كده كتيرنا معها وح نوع عصب أو صوماليا نعرفني سيدا وحكلا قيب سمان سيدا نقطة دقالة دي دحدو دا كونفليكتيجا مركب محي كلتا ما وحلا أقبلي كرا دوتا أنك نما فكتيجرينس وح إثيوبيا كده waxay ka dhigan tahay annagu Ethiopia ma nihiin Ethiopia ka daba soconaynaa Soomaaliya madaxana kaaga fadhin adiguna Soomaaliya Ethiopia ma tiid Ethiopia waxba lama qaybsan kartid waxba lama miistan lama farsan kartid adii anaa ku haysta anaa ku garto halka ku gartay ka dhiganta waan kula harayaa weyn iska cad doodiisa kalena waxa weeye oo video marda ma daarayno doodiis kale waxay ahayd wuxuu yiraahday qolyaha mucaaradka ah ee deegaanka jooga weli waxay daba ordayaan centerka wuxuu yiraahday waxaan lagu eedeyn karaa election kama dhicin deegaankeena election waa fair and free election kama dhicin annaka og inuu ka dhacay wuxuu yiraahday Ethiopia kale dad ma xirxidho أول إثيوبيا قادك عيشت لكن هذا ديانك الصومالية إثيوبيا قادر محرحدة أنا كحرحدنا وحنا أنا كحرحدنا مرنا وحلية fair and free election بقدعي أو ضدك وهما وحلين حق أي كدودان وحول بق أو مال والبق أي ماري كران ضدك واحد المجاري حديث سياسيين تسيد on leftها أو قلته أي صفران أما أي مال كان أما أي حلان وحرحية so ما أنا وأنا مستعدن بلاقيه هي سياوي ماشي سؤالك ودي أحمد هاي ما حيك هذاك وليه هي نكن إنه ليه هي كلام قرن هذاك وليه هذا البكوه يستوي كليه هي ولي وحي يعني أديس مرد عضي مسمردين يا لو رجع سؤال شيء وضدك معارضة كو إيدينيا
adduun weynaha su'aasha quraata la isweydiinaya maanta adiis ma dhacay mise iya ma dhacaysaa mayna su'aasha kale la isweydiinaya maxay ahayd exactly sidee lagu badbaadin karaa waddankan inay hadday dhacdo iyo haddayna dhicin yaa qabsanaya intaa wey qof walba oo adduunka oo dhan halkuu qorshaha ka geli lahaa isagu uu eegi lahaa iyuba ku leeyahay inuu maqla nacayaaba inay dhacdo qofkii dhacaysaa loo la yaaban yahay haddaynan dhicinse wuxuu diidan yahay kaleetana dadku yeena centerka la hadlin yeena la hadlin Ethiopia annaka uun aan la hadalno inta internally hala soo fiiriyo haddii dadkaagii aad la hadlaysidna wuu ku xirxiraya ma garanayo city inuu dadka xirxiro marka ay shacabka wada hadlaan laakiin dhinacaas iyo mataqaanaa dhinacaas deegaanka ay ogaadeenka degan yihiin intaa dadka madaxa laga wada xidha 24 saac oo xiriirdaas way socotaa so maxay kula tahay doodaas warniyow ninka waxa weeye ninka meesha aan ka joogay inaan kuu sheegaa mooye maaragtay sida uu yahayna waa iska muuqataa ninka waxa ku adag waa adiis baa ku adag inay dhacdo abi oo meesha oo dhaca yaa soo ku adag isagee tiimkiisa oo dhaca yaa ninka ku adag wax kaloo ku adag ma jiro intaasuu ku badbaadin lahaa wax kastuu waxeeyey muxuu waxeeyey soomaali iyuu guray dab buu gashay waxaan washan tobnahayn dhul soomaaliyeed oo socda iyuu difaaci waayey oo ummadda kale uu siiyey xadhigana isaga danihiisuu ku gaadhayaa wayba soo socota iminka waxaan maqlayaa xagga city dadkii in la xidhayo iyo iminka way soo socotaa xadhigga waan maqlaa iminka dadka in xagga city in la xidho oo dadka uu hadlay waxbuu yidhi xoreed qowlka iminka wayna soo galaysaaba sida iminka aan ku maqlayo kolkaa ninkani wax soomaalinimo iyo wax ku aadan ninkani ma jirto dadka soomaaliduna hadday iska qaban waayeen dee haddee toole waa gooray xeedee fandhaanka dhaceen iyo umay baarugi doonaan so su'aal marka aan ka gudubno mustafa iyo khudbadiisii wax yar xaaladda jabuuti nooga khayr hadal kadibna city baan usoo noqonanaya dowlad deegaanka horta jabuuti maanta niyo jabuuti horta kow uu ku raagay ninba cumar uu ku raagay meesha uu joogaa qofku ka ku raagana haddeed in iska bedelo dadku way jecel yihiin kow agteerna uu ka soo ahaa meeshan agteero badan in badan bay waqti gula jiray iminka meeshii 3 nin baa yaa u yimid regionkii oo isaga ogolayn ciidiba xagga isaga ka haysta dadkii reer jabuutina weliba xitaa waxaa halis ay ku jirtaa dadka reer jabuuti inta isaga ina cumar in la cawiro la doonayo iyaa reer jabuuti in la cawiro iminka hadid annaku aan ka baqaynaa kolka halistu waxa ay ka joogtaa iminka 3 waddan ee kuu sheegayay nacaybka ay isaga u qabeen iyaa iminka arrintan dadka reer city loo leenayaa dadku sa ma fahansano kow laftigiisa isagu uu fahansan yahay isagu sidaa laakiin dadkan inuu reer jabuuti u yeedho war xaaladan sidan bay jirtaa halkan bay jirtaa uu u sheego uu la tashato laftigiisa uma baran oo waa wiilka isagu aarkaa iska talinaya ee halkaa maaragtay qofba uuna la hadal kolka jabuuti waa sidaa ninkaabaa iska haysta qof tala in la wadaaga ma ogolo dee waa jabuuti waxaan kaaga sheego waa sidaa laakiin halista ay ku jirto waa geeska jabuuti arrimaha regionka iyo halis jabuuti ugu jirtaa so marka aan usoo noqon dhinaca city iyo sida wax u efadgaran city waa la socotaa wax ka socda mar walba waa la socotaa mataqaanaa deegaanka soomaalida meelaha soomaalida degan yihiin ay canfartu ay haystaan dowlad deegaanku inayna waxba ka qabanin oo dhowr mar ay ballan qaadeen in ay dagaal ay go'aansadeen xitaa inaan dagaal baan ku qabanaynaa ilaa haddana ayna waxba ka qabanin madaxda mataqaanaa gobolkaas ka soo jeeda ee deegaanka ku jirana intaas iyadoo oo ay waxba u qabanin ayaa markay tagaan even city iyo meelaha ka mid waxaa loo soo dhoweeyaa si qayr macquul ah xagee wax iska qabsan laadahay arrimaha city iyo dadka reer city igu celi xagga yaa la soo dhoweeyaa waxaa la soo dhoweeyaa aadan faarax oo kaleeto
waxaa la soo dhaweeyaa mataqaanaa madaxweyne ku-xigeenka oo kale cid ku bannaan baxda oo la dagaalanta ma arkin cid mataqaanaa diidan oo openly u dhexaysa inta social media ku jirta mooye ma jiraan so arrinta maxay xaggee wax iska qabsan laadahay waniyow dadka hareysati dhibaata haysata kolka hore niyow dad dhaqan leh oo ismaqla uu ninka siyaasigii uu ninka dhaqanka uu ka dambeeyo oo ninka dhaqankana dhaqankiisa uu ku joogo yaa jirtay wixii oo dhanba way isku laaqmeen dadkan jabuuti ku noolla etoobiya ku noolla dhibaata haysata dowladdii jabuuti iyo dowladdii etoobiya iyo dadkan u dhexeeyaan labadoodiba dana jabuuti iyo etoobiya u dhexaysa labada dowladood unba iyo culays baa iya ku dhaca oo labada dowladood waxa ay rabaan iyay ka yeelaan waxaa dhibaatada ugu jirta waxa weeye damiir la'aantan waxa ugu wacan haddii ay noolaadaan dadka dhukan jooga ee city ee haddii dadka wax iska dhabi lahayaan bay noolaan lahayeen ninkan jabuuti haysta iyaale war dadkaay inay hadday igu noolaadaan aniga isku qaraabaan naho anay igu soo jeesanayaan kolka iyaka laciifnimada horta xaggaabay uga timaadaa tan kalena dadkan jabuuti dadkaas city jooga badidooda jabuuti bay ku wada xidhan yihiin ay lacag ka qaataan jabuutidana maahay xitaa etoobiyana xitaa haddana lacag bay haddana ka qaataan niyow dhibaato weyn baa jirta dadkan iyaka dhexdooda iyakaa isku kalsoonayn iyakaana wax iyaka xaggooga ka yimiday damiirkii iyaa dhintay qofkii maanta wixii dhimanaya iyo wixii kale shaqadeeda maaha ayaa laleeyahay ragga aad tegaysa waa raggii dhuka bixiyey iyakii unbaa haysta waa iyakii waxa loo sacabeynayey qofkii ka maaratay ka hor waa runta sheegana waxaa la odhanayaa campaign baa lagu furayaa iminka sida aadan alaalo oo kale rag baa jira odayga buu xuseen baa jira rag kalaa jira oo haddii runta ay sheegaan oo iyaku ay ka go'an tahay dadkan in xaqooga loo doono aad baa loo wiiqayaa oo campaign maaratay wuxuu kolkay corruption ay noqoto haddii tole servicekana damiirka iyaa dadka ka dhinta kolkaa wixii dhimanaya iyo wixii kale lama kala garanayo dareenkiibaa baaba'ay raalli baa laga yahay iminka in saddexdaa degme ee la qabsaday in la qabsanayo oo dowladda etoobiya arrinta ay u baahan tahay waa loogaa dadka run looma sheegin halkan dadkan waa dhufays waxa loogu talagalay iminka dadkii soo barakacay halkii ay ku yimaad maaragtay qaxootigii adduunka lama qorin oo qaxooti lama qorin waxba lama siiyo waxaa la yidhi war hadday rasaasti dadkiina waxay joogaan halka annaka waan ku dagaalamaynaa kolka hadday rasaastii cafarta cadow ku dilayay haddii ay waxba ka qaadi weyday gaaja wax ka qaadi iyakaa soo farxaan yaa laleeyahay dadkan matali lahaana ugu talagalayna waa dadkan aad arkaysa waa mustafa cagjar oo kale weeyaan oo isagu abi muxuu yidhi xamashi maxay rabtaa isagu leh dadkan isagu ma matalo kaabaa ugu horeeya kuwan kalena waa kuwa sidiisa daba socdoon iska ogol yihiin odaya dhaqmeedkii u hadli lahaa laftigooga ma jiro ogaas bay leeyihiin ogaaskii u hadli lahaa laftigiisa isagu halkii u habooda marine siyaasadii waxbuu iska dhex galay oo siyaasad buu iska oo raggan jijiga isagaaba sarkaanba xagguu ka odhan lahaa waranu siyaasi meye siyaasi buu leeyahay reerku reersitiya xagga ula taga isagiibaa siyaasaddii u jajaban niyow dadkoogii baa dayacay khaayinimana waa loogu talagalay dhukan in la bixiyaa loogu talagalay qorshayaal badan ragga canfartu kolkaa waxbay ogyihiin sidaa wax uma yeeleen wax kastay ogyihiin iminkana waxaba la isku haystaaba oo la leeyahay calanka canfarta aad geyseen halis khata maaragtay dembi bay ahayd calanka canfarta iyaa geeyey iyakiibaa iminka dembi saaraan doonaya hebel baa geeyey yidhi xidha dadka dhinta hebel baa ugu wacan iyaa iminka garbaciisa calan baa la tegey calankii soomaalida la tegey yaa ka taagay baa leeyahay hebel baa ka taagay xidha yaa iminka socota iyo wanjeliye kolka anigo dadkan iyakaa yaasiinow waxba anoo kaa qarnin dadkan iyakaa waxaan iskugu wacan wixii bay noqdeen waxaan maanta maxaan cunaa bay noqdeen tolkay run baan kuu sheegay sidaa baa noogu wacan
soomaali oo ilaahay uga gaaro oo bixisada laakiin ma jirto halista kale ee ka sii daran kolka kuwan reer Djibouti ee arkaya kolka iyaga kuwan cagta la soo mariyo xagga lagu socdo waa Djibouti waxa lagu socdo waa Djibouti sidaana dadka reer Djibouti ma fahansano kuwanna ma fahansano dhibaatada jirta waa taa walaalkay okay waan si fiican baan ku babal xaggaas aan ku axyar aan kala jarjarno in waa sax saad u sheegtay Soomaali waxa dhaqankii iyo dadkii kala goyn jiray kaliya ma aha dhinacaas iyo city kaliya ma aha deegaanka Soomaalida oo dhan ayay waxaas ka baaba'een dadkii oo dhan wada hunguri baa ka soo wada hadlay odayaasha dhaqameedkii saad u sheegtay ma aha kaliya ma taqaanaa ugaaska ciisaha kaliya ma aha iyakii oo dhan suldaamadii ugaasyadii wixii oo dhan dowladdii umay gacanta hoos dhiganayeen gedigood taas waa dhaqan cusub oo aan Soomaali waagii horeeto aanu ahayn ninkii wax ay la hadlayaanna ma jirto so taas ka soko maxay markaa kula tahay Soomaali ahaan maxay kula tahay waan ku caawin karnaa because waxaan tagay Dirdhaba waan tagay Dirdhaba markaan tagay magaalada dhaxbartankeeda ayaa dhowr boqol oo reer ayaa magaalada dhaxbartankeeda deganaa oo iyagoo qaxooti ah ilaa haddana waan hubaa inay degan yihiin oo inaan meelna tegin meelo badan oo deegaanka Oromada dad badan baa ka soo qaxay kacanfarta waad u jeedaa waxa ka socda oo dadkii maba register gareyn baad leedahay haddeerto so Soomaali sidan dan ma ahee maxaa Soomaali sidee aad dhibka ka socda city uu noqon lahaa dhib ka socda Qabridaare dhagax buur ka jijiga ka socda kan ka socda Djibouti dadka dhibka lagu sameeyay sidee waxaan aan u Soomaaliyeyn karnaa dadkanna aan u soo nooleyn karnaa sharaftii Soomaalinimada horta Axmedow mid taas waa taa horta zaman kastaba hadduu zamanku adkaado rag baro ka dhigaa moogta wixii wax fahmaysana inay arrimaha inay iyagu ay wala xidhaan ay wala hadlaan baa qurux badan waxa ugu qurux badan waa arkaa rag imika aqoonyahanaa afkaar maaragtay fikra oo hadallada saan kuu sheegayo oo aan ka soo dhigto aan ka dhegeysto waa maqlaa waxa loo baahan yahay horta dadkan xor in loogu hadlo oo codkooga anagu xiyaan karayna anigu caawina waa waxa naga saaran anaka waxa kaloo loo baahan yahay war Soomaali wixii macquula imika shirki lagu qabto kale sida lagu qabto kale in sida Yurub lagu qabto dadka in la wacyi geliyo in la fahmo war wax Soomaali u maqan yaanay jirin inay jirin oo inay jirin oo yada lagu maqan yahay khayraadkii Ethiopiana iyada Ilaahay dhigay ay fahanto waa inay sidoo kale dad siyaasiyiin dad wax fahmaya waa inay sida iyagu ay maartay si mutadawacnimo ay iskugu ay wada hadlaan ay wada sheekaystaan oo kuwan talada haya waxba laga sugin oo action kale si kale maartay aan dawladda laga sugin aan wax iska urursano annaku aan gargaarno mashaariic iska madax bannaan haddii la karayo bal kuwan iyaga joogana bal wardi haddii ka inta ammaan noo siiyaan wahlo sal haddayna ammaan noo siina de in iyaga dagaal la galo oo iyaga la iska qabto cadow hortidii ileen doqontu waxay yiri hadday koo dhaato mashaakil iyada iska dil kolka dhibaatada baa jirta dadka isaan baa lagaga bixi karayaa oo in lagu talagelin dawladda oo kuwan dhinac la iskaga dhigo iyo qurux badan kuwan inay ummadda u soo jeestaan ay u gacan hayaan ee ummadda wala shiriyaan ma rabaan kuwani waa safiiro aadan faarax ahaado ninkana ahaado waa safiiro xamashiya dadkan waa dad asimilayda waa la asimilayay ma jirto Soomaalnimo iyo qadiyad Soomaali maanta iyo ma taalo example baan kaga soo qaaday ay ku ma garanay laakiin wali ma ka dhacday dukan Ethiopia ta sare ku sheegay ma ka dhacday nin dukiisa fasaxay oo saxeexay oo ummadii maanta haddana hor joogo u talinaya wali ma ka dhacday oo haddana
intii yarada federalismigee nabadda ahayd ee wixii indhihii la biraaqsanay kule bb baan hor keenay oo indhahan ka soo xidhayaa kule iyo hor joogna weli haddaan aan ku hor joogo kule weli may ka dhacday kii shalay dadkii shalay aan dhawaan wareysiyay dadkii xaggaa la keenay kolkii meesha qaxootiga la keenay waa lagaga kala caymaday laba iskool waxay maqsin bay ku galaan room bay ku galaan konton qof yaa 60 qof saddex sida cunto lama siiyo mulli dadka mulli baa cuntada soo gura cunto lama siiyo daawo lama siiyo lama ogo waxba loo yiman waxa igu maqla shalay baa loo tagay daraad baa loo tagay oo la yiri halkii aad xasuuq ka dhaxay dadkoogiyo kolafiya dibadda yaalaan iyaa la yiri halkii baa laynagu celinayaa cafartan la soo heshiinayna iskala soo heshiiya cafarta halkaasaan ogaada nacam weli ma dhicin halkiina waxa ka dhacay Duka City weli kama dhicin weli haddana way ogol yihiin oo dad baa weli rag baa weli kule asxaabana rag baa kule weli waxaan la kunahay rag baa weli hada u aaminsan dhibaatada baa jirta in loo soo duceeyo dadka qurux badan nad duca kaliya tama wax hiliyo hooba u sameyn karno waan u sameyno waxaa kaloo kugu daray waxaa jira gabdho ayaan dhaweyd aan ka qaaday yimid ila soo hadlay oo charity waxay wixiyeen bal yaku war siyaasadii waxaana kuma doonay bal ciyaalka iyo gabdha wixii agoomaha ahaa iyay wax u wadaan ay wax u ururiyaan gabdhahaasi dhowr iskood bay wax isku qabteen ee isku xilqaameen way la soo hadleen waa gabdho fiican deja imika already waxa la joogay inta waxyaabaha ay qabteen ba wax la hambleeya bal sidaa oo kale Axmedow haddii fundraising waad kartaa dadka ajar baan maaratan ya xil baan naga saaray laftigiina inaad wax la qabatin Axmed Yaasinow anagoo diyaar baan lahay diyaar waan wax kastoo qaban karno waan qabanaynaa laakiin dadka way dhiban yihiin Axmedow aad bay u dhiban yihiin ciraya dhul meel ma jiraan maya cid walbo daawanaysan waxaan adiga la soo socodsi waan share gareyn doonaa waan ka hadli doonaa mar baan isku dayaynaa inaan qorshe ka dhigano fundraising iyo wax ugu sameyn kar lahayn laakiin waxa taabatay waxa weeye baahiyo badan baa taabatay waxa taabatay dhaawacyo badan oo dadkii haysta oo dadkeenii in uunan xataa uunan lahayn dadkii hogaamin lahaana inay noqdeen dad kaleeto ambassadoro oo tala aan ka sugayno ayna tahayna inaan annaga isku tashano marka aad baan kugu taageerayaa waxaan gunaanadkii rabaa inaan ku weydiiyo waan u jeednaa in uu dhibkan uu socday in muddo ah oo meelo badan uu soo maray waad u jeedaa in dadkeennii iyadoo la leeyahay Soomaaliya mid baan nahay haddana qabiil loo kala qaybsan yahay oo qabiilkii uu shaqeynayo waad u jeedaa in uu madaxweynihii deegaanka uu dhahayay dadka baarlamaanka matala markii ugu horreysay annaka dooranay xabad so oo qof walba kay doonayeen inay doorteen waadna ognahay in madaxweynaha laftirkiisa in la soo doortay oo Abiy iyo Axmed Shide ay soo doorteen waan ognahay dhalinyaradiina waxaad u jeedaa iyakii oo riwaayadan iska gadanaya khiyaaliga ah ee dhinac walba ka socota aynan ahayn war maxaa Soomaali u ah dan u ah run ahaantii aniga aad baan uga mabsuuday markii aan la soo sheekaystay dhalinyarta barbaarta ee Dirdhaba joogtay hamigoodii iyo say sameeyeen iyo sida magaalada Dirdhaba ee faraha uga baxday ee magaalo Soomaali aynan u ahayn oo anigu mar walba doodeed waxay haddii deegaankaasi ay dowlad rasmi ah ay ka dhalato magaalo madaxda Jigjiga waa inta laga raro waa in Dirdhaba loo raro si kale kuma soconayso sidii ay Oromadu ay magaalo madaxdu Addis Ababa uga dhigatay Dirdhabana waa inay noqoto magaalo madaxdii Soomaalida doodeedu taasi mar walba haddana ay tahay haddii kaleeto say farahay kasii wada baxaysaa maanta because waana magaalo aad u qurux badan oo cajiib ah markii aan tago dhalinyaraduna waa dhalinyaro hami badan ayaan la soo kulmay oo markii ugu horreysay kawaan meelaha hilbaha lagu qala ay furteen iyagoo waagii hore ka faani jiray waxaas so sideen dhalinyaradeenii aan u wargelin karnaa una abaabuli karnaa dowladda deegaankana iyo dadka la midka ahna ama uga tashan karnaa ama aan mar walba challenge garayn karnaa gunaanadkaaga horta dadku Soomaalida horta dhibaatadooda wala qabtaa
laakiin maanta waxa ugu daran ee ugu liita waa dadkan reesiti anaa wallahi aad u naaqusin waxaan ku siinayaa dirdhabe 30 sano koways qaamo iyaa laga qaaday Soomaaliya yaa laga qaaday federal laga dhigay taariikhdeedii iyo asalkeedii say leedahay dad kale waa la garanaya صح dirdhabadii iyo imika dhukii kala cunaysa bahal noqonaysa ilaa way fiday ilaa shinile soo galaysa dhukaay waa dirdhabe waa federal ay ku socotaa beeraa la bixin doonaa way socon doontaa dirdhabaa sii fii doonta halkan kale already in been laaga sheegin waa loo gol yahay in la siiyo cafarta kolka waxa ugu daran warta dhibaatada weyn imika soo kilitaanka ugu weyn ay ku jirto waa dadkan city waxa aan dhalinyarta city waxaan leeyahay hadday maqlayaan war waxa lagu wado kiilka ee la gumaysanayo hadday Soomaali loo baahdo xagga Soomaalida laga soo galay waa ininka ugu jilicsnaaday halkiina laga soo galaya Soomaali dhukiinana waxaan leeyahay u fikiro maanta sanad ku jirtiin si lagu jiri kara maaha dhulkan ininka dhukiina ayaa loo soo tashaday waxba siyaasadan qabow iyo waxaan aad sheegaysiin waxba niima tarayso iyo biyahana cabisiin qabow ay fadhiin war madaxa isgasha dadka siyaasiyiinta ee firfircoon ee doonaya inay wax diiridaan qofku doona ha noqdo hadduu kuwa reesitin gabaan anigu waxaan yooran lahaa waa ragga ONLF iyo ragga kale maaragtay Ethiopia kale u taga oo dhaha siyaasiyiinteedii baa annaka naybsaday oo nagaday innika waa Soomaali baa tiini dhukan la dhacayo ee la iibiyay waa dhul Soomaali ee ka yiri taga dhaha innikay maanta dul taala mas'uuliyadu oday iyo islaan oday iyo siyaasi way nigabeen reesitiyow ha sugina wax oday dhaqameed iyo oday iyo nin siyaasi way nigabeen Ismaaciil Umarna haddaad degu dhigtiin isagu kursigiisa ayar buu eeganaya waxa uu maleegay wuxuu dhan imika isaga iyay afyub wuxuu dhan imika ugu yaalaan kolka karin xun iyadna wax ku haaladhi Ismaaciil Umar suu lahaa iskaga ciifi oo kuwan baahi bad oo gaajo ku xakun oo ummad kale ku hoosaysi waa ka maanta isagu ummad ku simaa dhulkii wulaaya laftigiisa waxaan filayaa imika inuu wax dareemay yaan filayaa kulli waa raga inuu wax dareemaan filayaa meel wax ka soo qabtana malaha uu girilaya laakiin ninka lagu socdo dadkan koola soo maray waa isaguna kursigiisa buu eegayay kursigiisa iyuu eegayay dhibaatada baa jirta dadka reesiti waxaan leeyahay war siyaasi iyo oday niin nool ma jirto kuwii nii hadla waa kala xidhaya xarig lagu goodinayo waxaan leeyahay Soomaalida kale u taba oo dadka kale dhiigale ee wax arkaya isku dhiiba oo la hadla oo u yeero oo shirweyne qabta anu saaba oran lahaa Axmed Yaasiin aad oo maasan tahay dhibka city ka socda waa dhib Soomaaliyeed waa dhib loo wada taagan yahay deegaanka Soomaalida waxa ka socda waan la wada soconnaa waxaan leeyahay anigana dhalinyarada kula ku taleen masiirka Soomaalida Soomaali bay u taala dowlad deegaan uma taalo cid kalena uma taalo ciddii ku xadgudubtana waa wax aan annagoo dhan noo wada taalo marka maanta intaasaan ku gabagabeynayna Saciid hadda wax ku darsay waxaan ku darsani Axmed Yaasiin walaal anoo ka baakfaysanay fircoonada iyo aqoonta weerarga waxaan jecelahay inaad khashaafada aad walaalkay adigu waxa tahay nin activistiya nin contactiya badan laba adduunka yaa leedahay waxaan jecelahay dadka halkaa ku soo barakacay wallahi magaalada muli erar afdam jooga la dajiyay looma laamin anaa waraysi ka qaaday looma laamin iskool yar bay galaan way ooyayeen maartay fasal iyay 60 qof ku galaan daawacoogii waxda way ma jirta xibaa galay qaar baa lay sheegay igu dharinay gacmaha yaa ogaan niyo dhibaato fool xun damiir la'aan baa ka jirta kolka hadalka ay naga qaadeen aan siiyeen waxa yar maqlay toddobaadkii dhow bariis baa loo geeyay shubariis yaa loo geeyaan maqlay
kadibna mustafa yaa u yimidaan maqlay intuu jabuuti yiman oo yidhi canfartii baan nagu celinayaa dadkii dhintay lafuhoog lama aasin xal iyo arrintii lagama gaadhin waxa weeye canfartii oo maanta weli hub kala heshay yaa loo geenayaa waa ninka oo halil dilay oo taga weeyaan annakaan nila joogayno baaskar maxaa liyo booliis baan raacaya soomaaliya ma jirto dadkii bay fajacsan yihiin waxaa kaloo aan kuu biirinayaa axmedow waad arki doontaa weliba waxa dhacay waxay soo wadaa iminka dowladdan waxay soo wadaa inay ka furato adeecado halkan yurub iyo canada waa ogaanta weliba adeecada ciisa inay furato ay weliba annaku jihaadkaayo dadka iyo waxaan dhibaatada aan sheegayno kuwa ka hortaga oo buriya kuwa ka hortaga oo buriya oo been iyo balambal iyo wax aan jirin iyo hubsiimaa la siinayo waxyaaba aan jirin iyay soo wadaa weliba nacam waa dhagar laga duldhigay weliba waxaan jecelahay waxaana in laga waantoobo dadka adigu haddaa rabto intaad karaysid maxmedow la dagaalan dadkaana inaa khashaafadda aad dul dhigto iyaan walaalkii lambaradooda annagoon ku siin inaad waraysato hay-adaha wixii loola hadli karo raggii dadka u dhowaa aqoonyahan maanta ciiso daf aqoonyahan uu leeyahay siyaasi waa leeyahay dowlad maanta waa lagu sheegayaa dowlad degaanka waxbaa kaga jira dadkaasi ma qorro qaxooti iyo kuwa xama siiyaan ma daweeyaan way ugu talagaleen inay ka soo yaacaan meesha cadafarna qaadato dadkiina waxay ku leeyihin way dhaar mareen annaku kama soconayn halkan kuwayagii dhintay baan saa u eegayna dadkayga dhintaa saa u eegayna iyo joogaan niyow dadka inaad khashaafadda aad wixii aad garanaysid ee miidiyaha iyo adiguba dadka inaad darilaahay u waraysato ood adduunka indhaha ku soo jeesho dadka walaalkay ajar baadna ku jiri waana xaq adig ku saaran intaa diyaar baan nahay waana kaa qaadaya contactigooda insha allah isniinta soo socotana waxaan isku dayaynaa inaan helno inta ka horeysa inaan haddaan heli karnana waan samaynaynaa wixii international communityga dadka xogta aan soo aruurino kadibna waxaan la sheergarayn karna waan la sheergaraynaynaa waana wax fool xumo ah waxaad ka sheekeynaysid in maanta ay dirxi galo oo 50 qof ay class ku wada seexdaan waa iyakaa ku oran bini'aadanimo ma aha waxaas way dhaaftay bini'aadanimo aan maantana laleeyahay mataqaanaa deegaankii wax walba nabad baa ka socota dadkii soomaalida ahaana aynan meydkoodii aynan aasan karaynin reerahoodina ka soo carareen meesha degnaayeen waa wax aad u foolxumo damiirka meel walba uga dhacaysa keliyatana taas keliyatana maa deegaankeena haddeerto khatartii ugu weyneed baa kusoo socota oo abaaro xun ayaa ka socda oo kala daran abaaraa nagu socda siyaasaddii etoobiya oon deganeyn baa jirta madaxweyne iyo dowlad deegaan aanan shacabkoodii la tashanaynin cidnana dooranin ayaa meesha joogta madaxweyneha wuxuu leeyahay waan annaga dadku nugu kalsooyin doorashadii dhacday marka xaalad adag baa noo taalla laakiin anigu mar walba waxaan yidhaahdaa every crisis is an opportunity waxa weeye waa waqtigii aan ka faa'iidaysan lahayn oo waqtigii aan maskaxda dhuujin lahayn oon ka soo saari lahayn fikir sax ah dee shaqadeennana aan qabsan lahayn haddii aan hawshan annaga un bayna dul taallaa mar walba kumana hadlayn karno cid kale kalamana tashanayna inaan la dagaalamno mooye dagaalkeennuna ma aha wax burburise oo wax dhis marka taas waan ka howlgalaynaa aad iyo aad baan kugu mahad celinaya haddaad soo gabagabaynaysid waad soo gabagabayn kartaa mar kale alhamdulillah waa dhan tahay axmed in badan baa le saacad way naga badan tahay aad baan kugu faraxsanahay axmed jazaakum allah khayr